ismaaciil samater oo macalinka ah macadka James Wallace ee kuliyadda Macalester ee gobolka Minnesota. Winnie Mandela waxa ay ahayd qofkii labaad ee ay isguursadaan Nelson Mandela. waa xaas ka horreeyay buu lahaa, laakiin markiiba ay kala tegeen. marka iyadii isguursadeen Nelson Mandela muddo waxoogaa wada joogeen, deetana dee waa kii isagu ka mid ahaa dadkii madaxda u ahaa, dadkii u halgamayey in midab gumaysigii foosha xumaha South Africa apartheid la baabi'iyo oo laga tallaabsado. waa tii la xidhay in 27 sannadood ayuu jeelka ku jiray. marka inkastoo 2 carruur ay isku dhaleen waktigii hore, laakiin dee way kala maqnaayeen. marka iyada taariikhdeedu waxa weeye wixii ka horreeyey Nelson Mandela intii uu jeelka ku jiray iyo wixii ka dambeeyey markii jeelka uu ka soo baxay. intii ka horreysay wakiil bay ka ahayd oo meel walba iyadaa joogtay oo dadka ururinaysay oo u hadlaysay oo qof halyeeya oo aada loo jecel yahay oo geesinimo badan leh, sidii loola dagaalamayay ee la iskaga xoreynayay midabka toorkii foosha xumaa ee South Africa ayay ahayd. marka laakiin wixii ka dambeeyey markuu jeelka ka soo baxay ayaa taariikhdeedii in madow oo fool xun baa soo baxday oo ahayd inay xagga sharafka iyo waxoogaa ay waxoogaa ka fool xumaatay, inay iyadu hunguri dheeraada yeelatay oo xagga lacagta iyo corruptionka iyo waxaas. marka taariikhdeedu way madoobato, way xumaatay wixii ka dambeeyey Nelson Mandela markii jeelka uu ka soo baxay. waan gartay. ma jiraan eedo ku saabsan inay ciqaabta amaba inay dadka dhibaatayso ay ka qayb qaadan jirto oo waxaa la yidhi taayaro gubanaya in dadka madaxa loo suro arrimo noocaas? de waxay ahayd ruux aada iyo aada u aaminsan mabda'ii ANC African National Congress oo soo aragtay foolxumada iyo cadaadinta iyo ciqaabta dadkii caddaanka ah ee South Africa xukumaya ay u geysanayeen dadka madow 100 sannadood in ku dhow. way soo aragtay wax badan ilaa yaraanteedii. marka dee halkaa cadho badan iyo didiilo badan ayaa ku jirtay. marka qofkii ka hor yimaada taa ee amba la safta ciidamada militariga, bilayska, basaasiinta, dowladdii caddaanka ahayd ee waddanka gumaysanaysay apartheid, waxay ahayd qof aada ugu kulul oo marnaba aan u dulqaadan bay ahayd. marka mararka qaarkood waxaa la odhan jiray way ka tallaabsatay xadkii. marka dad carruur weliba ah oo aada u yaryar ayay amar ku bixisay in maxaanku rahay si baan loo ciqaabo, qaarkood ay dhinteen. laakiin waxaasoo dhan waxa u geeyay hadday dhab tahay iyada la fahanteeda aada loo kadeeday oo gurigeygii la kala daadiyey oo waddanka gudihiisa meel la mustaafuriyey oo dowladdii caddaanka ahay ay ka dhigatay qof cadaawad dheeraada loo hayo iyadoo Nelson Mandela iyo ANC da ay isku xidhan yihiin. waan gartay. wax haba yaraatee faragelin dhinaca maamulka ah oo inay ka faa'iidaysanayso inay tahay marwada amaba halgamaaga ama markii dambe madaxweynaha dalka Koonfur Afrika miyay jirta? 2 amuurood ayaa markii dambe I think aad iyo aad u baabi'iyey dee jacaylkii loo qabay iyo xidhiirkii ay la lahayd Nelson Mandela oo ay qabeen. 2 amuurood waxa ta ugu horeysa waxay ahayd iyada oo aad moodo in ay waxoogaa ku sakhraantay dee madaxtinimadii iyo magicii Nelson Mandela iyo iyada taariikhdeeda wanaagsan ee soo martay oo gabadh halyeeya loo haystay inay waxaa ku sakhraantay oo markaa dad badan ay u qaateen inay ka faa'iidaysanayso oo xaggii edabta iyo maamulka iyo sharafka ay waxoogaa ka leexday. talabaadna waxay ahayd xagga hunguriga, xagga lacagta iyo malaha dee maalka iyo sidii looga faa'iidaysanayay taa labahanteedana tuhun baa laga galay. marka waxaad moodaa in ay taariikhdu laba ahayd oo tii hore way ku faa'iistay ee ahayd in la istaago oo dowladdii caddaanka midabta koorka ahayd la ishortaago oo lala dagaalamo oo aan loo jixin ee la daafaco dadkii madoobaa ee aqlabiyadda ah South Africa. xaggaa taariikh weyn bay ku lahayd. laakiin dhanka kale markaad u rogto waxaad moodaa oo ka duwan Nelson Mandela in xagga akhlaaqda iyo asluubta iyo maamulka iyo sharafka aad moodo inay waxoogaa jilicday oo marka ay maraha istidide kaba faa'iidayso oo xagga xitaa hunguriga la fahantiisa